بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما داودياشينا قيمها إيو قاياها نقبضا إن الصعودة برهينا يوتيوب تيك توك iyo facebooka teacher Okash horta aan ku leenahay youtube-ka oo ah teacher Okash online academy iyo barta facebooka teacher Okash iyo barta tiktoka teacher Okash markale waxaad ku soo dhawaataan course-keeni ahaa new concept english bogiisa koowaad first things first maanta waxaan qaadan doonaa cashirkiisii 15aad haddaadan hore usoo daawan 14kii cashir ee hore waxaan ku dhignay qaybta description-ka haddii aad naga daawanaysid dhankiyo youtube-ka cashirkani waxaa wada sheekeysanaya ama wada hadal ka dhexeeya nin la yidhaahdo Mr. John iyo Mr. Amy. Mr. John ayaa hadlaya wuxuu leeyahay come in soo gal Amyo ama Amyey soo gal. Mrs. Jones ayaa hadlaya wuxuu leeyahay shut the door please fadlan albaabka xir. Shut the door please fadlan albaabka xir. soo gal fadlan albaabka xir. Mr. Jones ayaa hadalka sii wata wuxuu leeyahay this bedroom is qolkani oo markaasi oo aniga ah qolkayga apostrophe meesha ku jiro qolkayga ama qolkani very empty waa qol aad markaasi isku dhacaysan waa qol markaasi aad isku dhacaysan waa waqti subax ah ninkan uu soo kacay qolkiisa uu isku dhacaysan yahay macnaha ninka markaas waxa uu mid markaasi qof la yiraahdo Amy waxayna rabtaa markaasi in qolkiisa ay hagaajiso markaasi hawlka qabato waxay tiri what must I do Mr. Jones maxaa oo waajib igu ah inaan sameeyo Mr. Jones ayaa hadal wuxuu leeyahay open the window marka hore waxaad furtaa daaqada and sidoo kale air the room waxaad hawo siishaa markaasi qolka. Mr. Jones ayaa hadalka sii wuxuu leeyahay markaad arrimahaas oo aad soo samaysid then kadib waxaad samaysaa but waxaad dhigtaa these clothes dharkani waa dhar markaasi oo markaasi ay saaran yihiin dhulka inay yaalaan ama sariirta inay saaran yihiin wuxuu leeyahay then kadib but waxaad dhigtaa these clothes dharkani in the wardrobe waxaad dhigtaa markaasi armaajada loogu talagalay dharka inaad markaasi gelisaa. Mr. Jones ayaa hadalkiisa wuxuu leeyahay then kadib make waxaad samaysaa the bed sariirta samee. Mr. Jones ayaa hadalkiisa wuxuu leeyahay dust waxaad markaasi boorka ka qaadaa the dressing table miiska markaasi oo labiska ah marka dharka uu qof ka soo baxsado dhankiyo markaasi armaajada miisu imaana arkiisna ay saaran yihiin dharkaas markaas mid sidaas uu ku labisana maana dressing table Allah miiska markaasi oo labiska ah. Mr. Jones ayaa hadalka sii wata wuxuu leeyahay deel marka ugu dambeysa waxaad samaysaa sweep the floor waxaad markaasi nadiifisaa ama aad xaaqdaa dhulka. waxaan filayaa inaad cashirkani aad wax badan ka faa'iiday intaynu ka kulmi doono cashirka xigana waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saartaan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saartid aad noo share gelisid asxaabtaada wixii talo iyo tusaalena aad noogu reebtid dhanka iyo commentiga tan iyo intaan ka kulmi doono cashirkiisa xigana waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.